أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، فسهل كل أمر عسير علينا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عيسى علي شيخ أحمد دقن ودن كان السويدن. maantay waa maalin khamiis ah, bisha agostana ay tahay 4/2016. waxaan rabaa in aan walaalaha Soomaaliyeed ee daafaha dunida degan kala qayb qaato ama ay kala qayb qaataan mashruucan ama barnaamijkan aan ku howlanahay, gaar ahaan mashruuca nahda oo ahaa ama mashruuc fikri isla markaasna loogu talagalay ama ka hadlaya dib u dhiska Soomaaliya guud ahaan. mashruucani wuxuu la magac baxay mashruuca dib u nooleynta Soomaaliyeed si loo helo ummad wanaagsan, qaran wanaagsan si loo helo. mashruuca nahda marka laba qaybood ayuu ahaa. qayb waa qayb fikri qaybna waa qaybtan maanta aan ka hadlayno oo qismul ighaatha ama qaybtiisa labaad ee gargaarka. qismul ighaatha wa kafaalat al-aytaam. waxa maanta aan ka hadlayno waxa waaye qaybta gargaarka ee mashruuca nahda iyo gargaarka ama kafaalaqaadka agoon. mashruuc kafaalat al-aytaam, in agoon la kafaalo qaado isla markaasna wax loo qabto, agoontaas wax loo qabto. marka insha allahu tacaala barnaamijkii hore ama qaybihii hore ee mashruuca nahda waxa waaye waa barnaamij aan ka hadlay ilaa dhowr xalaqadood aan kasoo hadlay ama dhowr qaybood aan kasoo hadlay, waana qaybo isdaba joog ayay ahaayeen, wayna noqonayaan insha allahu tacaala, wayna socdaan hadda ilaa hadda way socdaan. marka walaalaha Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay bal kiliibkan ay la socdaan oo ay dhuuxaan waxa uu ka hadlayo. waa barnaamij noo wada yaalla, ma ahan aniga keliya, ma ahan, waa dhammaan qof kasta ee waxgarad oo muslim oo Soomaali waa barnaamij u yaalla waaye. marka insha allahu tacaala waxaan ka hadlaynaa galabta, waxaanu ka hadlaynaa haddii alla yiraahdo 3 qaybood ayaanu ka hadli doonaa. qaybta koowaad oo fadliga kafaala agoon, fadlu kafaalat al-aytaam, fadliga diinta islaamka ay siisay, qur-aanka uu siiyey, nabigu uu siiyey calayhi salaatu wasalaam. weliba si kooban baa looga hadlaya, leanna barnaamijkani ma aha barnaamij muxaadara, maaha muxaadarada way ka duwantahay, barnaamijkan way ka duwantahay. muxaadaradu waxa waaye intaasoo aayaad fara badan, axaadiid fara badan ayay ximbaarsantaha muxaadaradu. dadku maantay muxaadaro la-aan ma hayso, aqoon darra ma hayso, laakiin waxaan jirin waxaa la yidhaha waxqabad iyo is-aaminaad ayaan jirin. waxqabad iyo is-aaminaad haddii la helo, mashruucu wuu guuleysanayaa, ummaduna way guuleysanaysaa. qaybta labaad oon ka hadli doono waxaa waaye sida aan rabno inaan wax u qabano ama waxqabadkeenu qaabka uu yahay inaan idinla qaybsano oo aan idiin soo bandhigno. qaybta labaad waa sidaas. qaybta saddexaadna waxaa waaye waa mahadcelin iyo dalab cusub oo aan soo gudbinayno haddii aan la yiraahdo. marka guud ahaan haddii laga hadlo dhibaatada maanta haysata ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, waa shay markhaati madoonto oo la iska wada ogyahay. maanta xaaladda halka ay marayso waa wax la wada ogyahay, marka sharaxaad fara badan uma baahna. waatan la yiraahdo
Soomaaliya cidna uma maqna, ceelna uma qodna. Waxa jeebkeeda iyadu ay ka baxsata mooye, waxa iyadu isku qabato ama isla qabsanaysa mooye, oo iyadu isku tabarucayso, isku kafaala qaadaysa mooye, cid kaloo maanta usoo gurmanaysa maanta ma jirto. Marka insha allahu tacaala waxaan gudagelayaa agoonta Soomaaliyeed ee ku nool waddankayni hooyo guud ahaan. wax la soo koobi kara ma aha agoontaasi inta ay la eg tahay ama farabadnideeda. waxaanu akhriyay website-ka la yiraahdo Al-Jazeera Net, ama waxaanu la soconaa TV-ga Al-Jazeera inuu marar fara badan uu soo qaatay azmada ama dhibaatooyinka haysta caruurta Soomaaliyeed, hadday yihiin kuwa darbi jiif ah, hadday yihiin ama hadday yihiin kuwa agoon ah, haddii ay yihiin. website-kaasi wuxuu sheegayaa in agoon fara badan ay Soomaaliya ay ku nooshahay. gaar ahaan waxaa la sheegaa dhulka Soomaaliyeed inay ku nool yihiin agoon gaaraysa 630,000 ilaa 1 milyan oo agoon ah, kuwaas oo aan haysan daryeel caafimaad iyo mid waxbarasho toona aan haysan. sidoo kaleeto waxaa la sheegay in hay-adaha gargaarkuna ay aada iyo aada u yar yihiin, iyo dadka muxsiniinta ah ee agoontaas wax ku beela ama u naxaya, taasna way yar tahay. marka maadaama sidaas ay jirto, diinta islaamku oo ilaahayna siiyey subxaana wa tacaala, oo ilaah nagu hanuuniyey, wamaa kunna linahtadiya lowlaa an hadaana allah, ilahay haddii uusan nagu hanuunin lahayn ma aanan hanuuneyn. marka si kooban haddii aan uga hadalno fadliga ay leedahay agoonta, diinta muqadaska ah ee islaamka oo hadda aan haysano iyo guud ahaan sharaaicdii ka horeysay waxay ihtimaam xoog la siisay yatiimka, agoonka. agoon horta maxaa la yihahdaa? culamaa ulfiqhi waxay yidhahdaan agoon waxaa la yihahdaa man maata abuuhu walam yabluq mablaga arijaal ayaa la yihahdaa. qof aabihii uu dhintay, geeriyooday, si walba ha ku dhinto, ha ku geeriyoodee, oo qaangaarna aan noqon, kaas ayaa la yihahdaa agoon, kaas ayaa la yihahdaa. aayadihii ka hadlayay ama diintii hore ka hadlayay waxaa ilaahay qur-aanka noogu sheegay. qaala allahu tabaaraka wa tacaala fi suurati albaqara waid akhadnaa mithaaqa bani israa'iila laa tacbuduuna ila allaha wabilwaalidayni ixsaana wabidi lqurba walyataama walmasaakiina ilaa aakhiri laaya. aayaddaasi waxay tilmaamaysaa reer bani israa'iil ilaahay subxaana wa tacaala inuu ballan kaga qaaday inaysan caabudin ilaahay mooye, waalidiinta ilaahay mooye ilaah kale inaysan caabudin, labada waalidna ay ixsaan u sameeyaan, qaraabadana sidoo kaleeto ixsaan ay u sameeyaan, agoontana ixsaan ay u sameeyaan, iyo masaakiinta. waa sharaa'icdii hore. sidoo kaleeto qur-aanku wuxuu nagu booriyey calaa adaa'i lxuquuq, xuquuqda inaanu gudanno. qof waliba qofka kaleeto xaqa uu ku leeyahay inuu u guto, ama guud ahaan xuquuqda in si wanaagsan loo guto. xuquuqdaasi ha ahaato mid ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala oo annaga nagu leeyahay, sida ilaahay oo salaadaha loo dukado, zakada oo la bixiyo, sidaas oo kaleeto, iyo mujtamaca xaqa uu kugu leeyahay oo aada bixisid. mujtamaca marka waxaa ugu horeeya waxaa waaye labada waalid baa ugu horeeya, qaraabada ayaa ku xigta, agoonta ayaa ku xigta, iyo masaakiinta, iyo dadka baahida gaarka qaba sida dadka aragala iyo dadka xanuunsan. intaba ilaahay baa nagu waajibiyey. bal iska daaye, qur-aanku wuxuu la xiriiriyey qofka iimaankiisa ayuu la xiriiriyey inuu waxyaalahaas uu sameeyo.
إلهي القرآن كيسو حكوري ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. آية سمركا تفسير كيدو ديريا هاي سمفلكم معها من كلية إن وجيدين أدو جيدسان حق مشرق أما مغرب أو جيدسان وصلاة كلية أدو سو استاتان. ولكن البر من آمن بالله سمفلك وحاوي قف إله الرمية سدبعة الرمية أو شيء شعنهين معلنت آخرا الرمية وآتى المال على حبه ذوي القربى مال كان سية أسيغ ولي بجعل تدك قرابة يا أغونت يا مساكين تسية مالك إلهي ددك وحقوق أبورين جعلان فطريا وتحبون المال حبا جما مالك وجعشين جعل أد يعاد أفربضا أي جعشين فربضا يا جعشين وحال هذا قفكي وحلويديو ديد وابلغ في شاليري ديغنا إنه كيما لوغا عبسدالير قفك دي وحلويديو marka koowaad uu dhididaya qofka gaar ahaan baqiil adooya uu dhididaya dhid baa qabana asiga dhan wadnuhuna saas buu u garaacaya. marka samafalku waxa waaye in wax la bixiyo wa aata almaala ala hubbihi almaalu maalullah maalku waa maalka ilaahay wal insaanu mustakhlafun fihi ayaa culimadu yiraahdaan wal insaanu mustakhlafun fihi insaankana asiga ayaa khaliif ka ah hantidan qofku haysto ilaahay baa siiyay subxaanahu wa tacaala. marka halkaan aad imaanayseen oo adduunyada nala keenayay waxba ma aanan wadan saas darteeda culimadu waxay yiraahdaan qofka markuu dhalanayo gacmaha sidaas ayuu isugu hayaa carruurtu markay dhalanayaan gacmahooda way isku dhagan yihiin qofku markuu dhimanayna gacantiisa way fidsantahay leer markuu geeriyoonayo oo naftu ka sii baxaysana gacantu way fidsantahay. culimadu taas way dareemeen waxay yiraahdeen taas daliil waxay u tahay qofku waxa soo gala inuu hayn doono mumsik oo naqan doono mumsik saa uu dhigi doono uusan marna uusan sii bixinaynin. markuu geeriyoodana oo naftu daysana wax walba uu faraha ka qaado uu sii daayay. marka qofku dhalanayana gacanta saa carruurta gacantooda saa isugu dhagantahay intay carruurtu ay yihiin oo dheerabta ay ku jiraan gacantu ma fidsana way isku dhagantahay. qofku markuu naftu daynaysana gacantu way fidsantahay. marka qofka muslimka ah muuminka waxaa laga rabaa intuu nool yahay in gacantiisu ay fidsan tahay inkastoo leer wala tabsudha kull albast way noo imaad waan ka hadli doonaa ha fidinin ya si kasta ha u fidin si walba ha u fidin kull albast ad ha u si fidin markaysa wuxuun dadku waa ilaahay waa ogyahay subxaanahu wa tacaala dadku inay hantida jecel yihiin ilaahay waa ogyahay. marka agoonta in laga hadlo waxay ka mid tahay qur-aanka waxyaalihii ugu horreeyay uu soo degay suuradahan muqasaraadka ah oo gaagaaban oo allahu akbarta loo yaqaano suuradda ataqaaniin oo la yiraahdo ara'ayta alladhi suuratu almaa'un ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim ولا يحض على طعام المسكين. يا وانا اخرنا وان كنت كنا افر لا تك ساعه سمرتا عروتي بالا بري ارايت الذي كي كورن وميادا اركين يكذب بالدين ما لنت قيامها بيننا بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك كاس وما لنت قيامها بيننا maalinta abaalmarinta beeninaya kaasi waxa waaye alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa midka eriya fogeeya yatiimka agoonka miskiinka ah oo cidna aysan u maqnayn aabihiisna uu ka geeriyooday cid ka faala qaadaysan aysan jirin wala yahuddu ala ta'ami al-miskiin
masaakiinta in la quudiyana aan dadka aan ku boorinaynin inuu bixiyo keliya maaha, inaad wax bixisid keliya maaha. haddaad wax bixiso waadba fiican tahaba, waad wanaagsan tahaba, waa sidii ilaahay raba ayaa taha. laakiin xataa haddii aadan wax bixinaynin waa inaad tirahdo waxa la bixiyo, inta kale waa inaad fartaa oad amartaa. walaa yaxudu calaa tacaami lmiskiin, dadka masaakiinta ah in la quudiyo. waxaa jirtay maalin maalmaha kamid ah magaalada muqdisho suuqa bakaaraha dhexdiisa anigoo saaca un iska socda oo maalin iska socda iska tamashliinaya ayaa waxaan sidaa u eegay shirkadaha ganacsiga, shirkadaha xawaaladaha, bakhaarada. marka waxaan arkay dad fara badan oo hor tuban, dukaan walba qof baa dawarsanaya, shirkad walba 20-30 qof ayaa hortaagan. caruurta iskabada la kala garan maayo, qofka magaalada dhex mara kala garan maayo waxa kale ma agoonba, ma darbijiifba, ma dad sidooda u socdaa la garan maayo. marka waan fikiri, waxaan isiri war dadkan haddii la siiyo hantida shirkadaha ay haystaan iyo inta shirkadaha xawaaladu ay haystaan iyo dadka ganacsatada waxa ay haystaan dhan haddii la siiyo xataa kuma filla. waayo dadkaasi baahi gaara ay qabaan oo i weheliso baahida hadda haysa, oo maartahay oo ay gaajoon yihiin, oo hadda ay waxay cunaan ay u baahan yihiin, oo lacag ay u baahan yihiin. baahida intaa keliya ma qabaan, waxa kale ay qabaan waxaa in wax la baro. ma arkaysaa dadka haddii wax la baro, ma arkaysaa qofka qiyamkii iyo ruuxdii ayaa soo laabanaya iyo akhlaaqdii baa soo laabanaysa. laakiin dadka marka lagu sii daayo, wax la-aanta marka lagu sii daayo, aqoon daro ay jirto, jahli uu jiro, waxa waaye xataa malaayiin haddii la siiyo oo hay-atul igaatha ay usoo gurmadaan, oo wax walba turki yimaado, oo carabi timaado, oo cid walba timaado, cid maanta baahi tiri karta ma jirto ilaa qofku asagu inuu gudihiisa iyo dareemkiisa iyo caqligiisa inuu isku baahi tira mooye, oo aqoon ay timaado mooye. marka aayaddaasi waxaan ka qaadanaynaa qofka eryaya agoonka oon kafaalo qaadaynin oo xaqiisa duudsiinaya inuu yahay kaasi midka beeninaya maalinta abaalmarinta. marka qofka suurtagal ma aha inuu mutadayin uu noqdo, qof mutadayin inuu noqdo, mutadayin alladii yacbudu rabbahu wayasjudu lilah wayasuum wayaxuj ويقرأ القرآن ويقرأ الدين ويكون مسلما مؤمنا إنه نقضه إسلام مركز قلبي سيسن حريسة إسن أوجرين أقونت إسن أوجرين إلهي القرآن كيس وحو كيري آيات كوي فربدينهم حتى علماء وحي شيغان باري قرآنك، لأن القرآن كو حواي وقاموس إلهي أهوى، قاموس إلهي مركز أريد دونيس إنك كبارتid waad ka helaysaa inta mar ay kusoo noqnoqotay eragaas oo kusoo noqday. marka waxaa la yiraahdaa dadka baaray ama culimada baartay erayga al-yatiim ee quraanka ka baartay waxay soo heleen in 23 meelood ama aayadood in looga hadlay, ilaa xataa culimada qaar ay gaarsiiyaan xataa 9 ay gaarsiiyaan. sidaas ayaa la sheegay oo quraanka inay wax badan ay kusoo noqotay al-yatiim in wax loo sameeyo, in wanaag loo sameeyo, in ihsaan loo sameeyo, in wax la baro, in la tarbiyeeyo. nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam asiga ayaa wuxuu kusoo koray agoonnimo. waana ognahay siirada sida ahlu siyarka si u hadlaan agoontinimada nabiga alayhi salaatu wasalaam inuu dhashay asigoo aabihiis oon arkin, hooyadiisna muddo kadib ay geeriyootay. kadibna nabigu alayhi salaatu wasalaam uu kafaalo qaaday adeerkiis Abu Talib, ama uu kafaalo qaaday aan iraahde awoogiis ayaa kafaalo qaaday. awooga markuu geeriyooday kadibna waxaa kafaalo qaaday adeerkiis Abu Talib ayaa kafaalo qaaday. taasna culamaa siyar ama ahlu siyarka way ogyihiin sidaa inuu yahay. marka nabigu alayhi salaatu wasalaam asoo agoonnimadii la daala dhacaya ayuu dadka ahlu Makka
wuxuu u ilaalin jiray ariga ayuu ilaalin jiray waa kii nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam nabi sooma marin ilaa ari ayuu ilaaliyey waa kii yiri sallallahu alayhi wasallam marka nabigu ari ayuu ilaaliyey oo duurka ama banaanka magaalada Maka ayuu ku ilaaliyey asigoo waliba lacag yar qaadanaya lacag yar oo ku noolada soo qaadanaya marka iyadoo dhibkaasi uu soo maray ayaa fi suurati ad-duha waxa lagu yiri fa amma al-yatima fala taqhar fa amma al-yatima yatimka fala taqhar haqarna lay agoonka haqarna ayaa lay ya dib ha u geysanin laana waad soo martay wayna buuxan way joogan wayna joogi doonaan marka dadka saalixiinta ah waxay og yihiin xuquuqda agoontu ay ku leedahay ay og yihiin ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran raashinka ay quudinayaan hadii wax helaan kaligood ma cunaan ayaga carruurtooda kaligood ma cunaan ayaga xaasaskooda kaligood ma cunaan bal qoyska waxa kamid ah ma arkaysa ya miskiin iyo yatiim iyo mid la soo qafaashay dacaan bay siinayaan raashin bay siinayaan bal fiiri dadka ilaahay tilmaamayo dadkaas Allah nagu daro subhanahu wa ta'ala ilaahay nagu daro wayut'imuna at'ama ta'amka ay bixinayaan ala hubbihi ayuu jecel wax jacaylka ama wax lahaanshaha qofka qalbigiisa way ku abuurantaa bini aadanka taasna lagu ma dagaalo ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran miskin iyo yatim iyo mid la qafaashay oo xabsi ku jira ayuu siinaya ayuu waliba dhahaya inma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukuran ilaahi dartiisa ayaan wax idin siinaynaa idinka dooni mayno abal marin inaad adduunka intaan joogna inaad na abal marisaano oo manni male galadaysi male markisa manni iyo galadays aniga waxaan ku qabtay aniga ku hayn jiray aniga ku soo koriyay aniga ku kabiyay malahan ya jazaa'an wala shukuran idinka mana doonayno inaad nagu shukrisaan oo noo abaal celisaan idinka dooni mayno ilaahay dartiis marka maxaa habboon marka sida diintu ayna amartay in la maamuuso agoonka in la maamuuso oraah wanaagsan qowl wanaagsan in lagu maamuuso iyo mucaamalo wanaagsan si uusan u dhedhemin mar kale dhibka ay leedahay ama kuleelka ay leedahay agoontinimadu ay leedahay in agoonku uu noqdo xubin bulshada anfaca inuu noqdo waxa waajib in la tarbiyeeyo haddii aan la tarbiyeeyin marka 1 milyan oo aan la tarbiyeynin ama ka badan waxa la yiraahdaa warbixinada qaar waxay sheegayaan 10kii carruura 3 kamida ama 4 kamida inay agoon yihiin Soomaalida guud ahaan geeska Soomaaliyeed degan bal fiiri waqooyi bari koonfur markaysa Hargeysa Puntland Xamar gobolada meel walba oo Soomaali ay degto ama guri walba ama xaafad walba markaad eegto ama iskuul walba agoontu maxay laagtaa ya maskaxda ku xanuunaysa markaad istiraado xisaab markaad istiraado waad yaabaysaa marka tarbiyada iyo waxbarida agoonka waxay waajib ku tahay dawlad Soomaaliyeed haddii dawlad aysan jirin yaa laga rabaa inay arrintaa u istaagaan hay-aadka ayagu gooni ayagu isu xil saaray iyo shakhsiyaad oo muxsiniina oo ayagu si gooniya u istaaga arrintan haddii marka aan galno nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa fara badan uu kaga hadlay agoonka in la kafaalo qaado dadka dhan waxay wada ogyihiin xadiis mashhuur ah iyo wada ogyihiin oo warinayo Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما رواه البخاري نبي حور عليه الصلاة والسلام
asagoo ummadda ku boorinaya aniga iyo qofkii kafaalo qaada jannada sidaa ayaan ku nahay sidaa faraja sidaas leeyahay in sidaa loo kala saaro ya as-sababa wal wusda farta sababada la yiraahdo waa tan waaye wax lagu caayo dadka lagu farafiiqo as-sababa la yiraahdo wal wusdana fardhaxaadka ma arkaysan fardhaxaadkaas ayuu nabigu calayhi salaatu wasallam sidaa yiri marka agoonka marka dadku marka way garanayaan axaadiistaas way aad bay u xifsiin maantay qur'aan iyo axaadiis iyo nusuus maanta in la sheego ama muxaadaro inaad dhegaysato waa wax iska caadi ah mobilkay kugu jirta tv-gaad ka dhegaysanaysa ma arkaysaa khudbadaad ka dhegaysanaysa sheekhi baa kitaab ka akrinaya oo axaadiistii way qoran tahay oo muslimki baa la akrinaya bukhaari baa la akrinaya sunanki baa la akrinaya axaadiista nabigu aad bay u fara badan tahay laakiin waxaa ceeb ah qofku inuu inta aayad dhegaysto aayaddaasna uu ku camal falin waa ceeb maalinta qiyaamana waa lasoo istaajinaya xadiid nabigu uu ku yiri calayhi salaatu wasalaam xadiid kale abu hurayra uu warinayo oo imaamu an-nawawina uu kusoo saaray kitaabkiisa riyaadu saalixiinka oo bukhaari iyo muslim ay warinayaan isigana waxa weeye nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam kaafilu lyatiimi lahu aw ligayrihi ana wahuwa kahaatayni fi ljanna qofkii agoonka faalo qaada agoonkaasina asigu uu leeyahay ama qof kale ay leedahay aniga iyo asigu jannada sidan ayaan ku nahay jannada sidan ayaan ku nahay imaamu nawawi wuxuu yiri alyatiimu lahu aw ligayrihi waxaa loola jeedaa qariibuhu aw ilajnabiyi minhu kan u dhow kan adiga kuu dhow agoon adiga kuu dhow waajibayba kuu taaba oo hooyadii inay kafaalo qaado haddii hanti haysato walaalkii inuu kafaalo qaado adeerkii inuu kafaalo qaado awowihii inuu kafaalo qaado qaraabadii kale inay kafaalo qaadaan taasi waaba waajib laakiin inta haddii la kafaalo qaado waxaa jira kuwa aan maaragtahay la yihahdo looma ooyaan la yihahdo ayaa jira oo cid kafaalo qaada aysan jirin kuwa badanna waa kuwaas maanta waxaa jira qabaa'il soomaaliyeed qabiilku ceeb maahan haddii qabiilku is-ceshado oo carruurta uu kafaalo qaado wax ceeba maaha diinta islaamkana way ku banaantahay laakiin waxaa jira kuwa maanta aan qabiil lahaynaa jira cid kafaalo qaadin aysan jirin wadooyinka daadsan oo buushashka ku jira oo iskuullada laga celiyo oo makhaayadaha laga celiyo oo hoteelada laga celiyo oo la iska riixo qurankooda iyo uf la yihahdo uf la yihahdo taa marka ma jirto cid marka u kacaysa marka ma jirto nabigu midka ayuu ula jeedaa calayhi salaatu wasalaam mashruucaana kaas ayuu ula jeedaa kaa cid u istaagaysa aysan jirin aniga iyo asiga jannada sidan ayaa ku nahay waa midka ajnabiga ah oo cid kafaalo qaaday aysan jirin xadiid kale abi darda رضي الله عنه وحال قولي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه نبي وحاوي من عليه الصلاة والسلام إنه تقول إن حرسدوشي ساعتين نمباوي من يشكو كشيغانا قسوة قلبه قلبي سئنو قلالي قلبي قلالي وأن قوينين أيالو ابتلي نكاس مركا نكان لكن وحورا وفهم سنة قلبي سئنو قلالي wuxuu doonayaa in yara qalbigiisa usoo qoyo qalbi qoyani qalbi qalalan meesha biyo laga hadli maayo koob biyo ku jiraan maaha bismillah koob biyo ku jiraan iyo geed la waraabina maaha waa qalbi ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة قلوب حاجرتا كأذيك بدن ماركيسا كأذيك بدن dhagxaanta iyo buuraha ka adag ayaa jirta oo buurihii ay ka jilcan yihiin ay ka qoyan yihiin ay ka wax fahmi og yihiin law anzalna hada alqur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah hadii qur'aankan mucjiska ah oo cajiibka leh lagu soo dejin lahaa buuraha lagu soo dejin lahaa way dhalaali lahaay ya خاشعا من خشية الله متصدع وحاله لجدا إنه
go-go-o oo buurti ay go-go-do dhagaxi uu go-go-o. laakiin dadka markaad u sheegaysid marka wax loo sheegay waxaa laga yaabaa qofkaani inuusanba maarata qalbigiisa uusanba jooginba. marka qalbiga jilcan ayaa faa-iidada ku jirta. nabiga ninkaan uu yimid asigoo ka sheeganaya qalbigiisa inuu qalalay. markaasaa nabigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam, faqaala sala allahu calayhi wasalam, atuxibu ma jecesha yuri an yaniila qalbuka, qalbigaadu yara inuu ku jilco ma jecesha ayuu yiri, oo weliba dantaadina aada gaartid. waa uu sii daray, wa tudrika xaajatak. annaga maanta danta aan leenaha waxaa waaye in dadkaana wax la baro, la hagaajiyo, la tarbiyeeyo, ilaahayna amuurtayna ilaahay uu noo fududeeyo oo xaajadayna aan helno. haddii aad wax doonaysid, haddaad ilaahay wax ka doonaysid dee ilaahay wax u qabo. haddii ilaahay aada wax ka doonaysid ilaahay waa in wax loo qabtaa. haddaad caafimaad doonaysid wax sadaqayso, haddaad caruur doonaysid wax sadaqayso, bulshada wax u qabo. markaa ilaahay adigana xaajadaadii ayuu maaragtay kuu sameynaya. waa haddii aan muslimiin naha dhab ah way. marka ma jecesha ayuu yihi qalbigaada inuu kuu jilco, dantaadina aada heshid. markaa wuxuu yihi dee jawaabtu waa haa waay, waaba iska muuqataa soo ma. irxam ilyatiima, yatiimka u naxariiso. wamsax ra'sahu, madaxana u masax oo sidaa uu masax adigoo maarata u naxariisanaya. wa atcimhu, ma arkaysaa quudi min dacaamika, dacaamkaadana ka quudi ayuu yihi. raashinka aad haysatana wax ka sii. dacaam marka waagi hore dacaam baa la haysta soo ma. hadda maanta dadku lacag bay haystaan, hantiya baa la haystaa, hanti shirkadaha lagu jiraa, ma arkaysaa. hanti gaara ayaa jirta iyo mid guud ayaa jirta. hantidaada wax ka sii, qalbigu ha kuu jilceen, dantaadana waad gaaraysaa. xadiidkaas waxaa soo saaray dabaraani, imaamu axmed ayaa soo saaray, albanina saxiix ayuu ka dhigay. marka asxaabta guud ahaan waxaa kamid ahaa sida aan ku hayno, ma arkaysaa taarikhda sida aan ku hayno, ibnu cumar radia allahu canhu wuxuu kafaalo qaaday agoon ayuu kafaalo qaaday. marka gurigiisa ayuu ku jilay, lagu jilay. anagu jil ayaan dhahnaa af soomaali ahaan, qeybta gaar ahaan xerta markii la joogo. xero haddii uusan jil lahayn wax ma barto. waagii hore sidaas ayay ahayd. marka ibnu cumar ayaa gurigiisa wuxuu ku jilay agoon ayuu ku jilay. marka raashinkii bay isla cuni jireen. maalin maalmaha kamid a ayaa raashinkii la keenay, ibnu cumar raashinkii loo keenay. agoonkii eegay wuu waayey, ma uusan helin. raashinkii baa la iska cunay. maalintii kadib, waqti kadib ayaa uu yimid agoonkii, gurigii uu yimid. dee agoon miskiinana way, waxba aan haysan. markaas ayaa ibnu cumar wuxuu yihi hala sii, uu yihi malab iyo sawiiq hala isugu dara ayuu yihi. malab iyo sawiiq, malabka iyo sawiiqa wax qaali ay ahayn oo aada raashin aada u fiican ay ahaa. sawiiqu marka waxaa waaye kan oo daangada oo kaleeto waa daangada oo la dubay oo malab dusha looga daray way, dhacamkooda kaas ay waa. markaas wuxuu yihi duunaka hada fa wallahi ma gabint, ma arkaysaa ma aadan maqnayn, mana lagu tabsiinin. muxuu ahaa raashinkaadii waad heshay, cun ayuu yiri. jilkaadi waad heshay ayuu yiri maanta. marka walaalayaal waxaan isfaraynaa almubaadarat ila alkhayraat, khayraadka in loo degdego, khayraadka in loo degdego. diinta islaamkuna waa ina anfartay. nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam fi xadiidin muttafaqin caleyh, xadiid la isku waafaqay oo muslim bukhaari ay soo saareen. abi hurayrata radia allahu canhu qaala jaa rajulu ila nabiyi sala allahu alayh wasalam, nin baa nabiga u yimi. faqaala wuxuu yihi ya rasuul allah, ayu sadaqati acdam ajra, sadaqada teebaa u ajir weyn. qaala nabigu wuxuu yihi an tasadaqa, inaad sadaqaysatid, wa anta saxiixun, adigoo fayow oo caafimaad qaba, shaxiixun bakiilna ah, takhsha alfaqra, faqrina ka baqaya, wa ta'mulu lghinaa, tanaadnimadana rajaynaya oo hididiilsanaya tanaadnimo. walaa tumhil ayuu, walaa tumhil ha sugin,
حتى إذا بلغت الحلقوم نفط إلى هلكا أي سو قارتو دونت أي سو قارتو وقلت أتراد لفلان كذا هبلنا تا أيان أدر دارمي ولفلان كذا هبلنا تاس كلا أيان سي قيلي سيدا أيان أكل ديبي لعقتي قولي هبلي سيدا أيان أكل ديبي ماركيسا وقد كان لفلان كذا كاس هبلنا كاس أي ولها انت تاس آذان بهم صدقيسو marka asxaabta rasuulillaah waxay ahaayeen in wixii caruurtooda ka soo hara inay sadaqaysan jireen ay ahaayeen dadka wanaagsan waa sidaas ilaahay quraanka wuxuu ku yiri wa aayad la wada ogyahay macluuma qof kasta way dad badan xifdisan laakiin ku amal falkeeda ayaa la iska rabaa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وأنفقوا بحية مما رزقناكم وحي أنكم أرزقني وحكب بحية وحاول هنتذا ورزق وحلو سوى هنتذا وحلو سوى هنتيا إلهي كسيه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إلهي قفك ضانه عريري أيو قليا قفك لنا إلهي ماركيسا وأواسعيا حمتيد إلهي وأواسعيا مركا قفك وحلسيي معهن معنى هذو إن إلهي وكتهمي أما إلهي وجعل استمع قفك إلهي وسوى حسينا إلهي من عبيا معه ماركيسا معنى تسمع marka bixiya leeyahay min qabli an yati ahadakum al-maut qofkiin intuusan geeridiisan u imaanin oo uusan dhihin lawla akhartani halla akhartani ilaahi muhaddib idigi wayse ila ajalin qariib ila waqti dhow wax yar in yar muhaddib igu dhigi wayse fa asaddaqa an sadaqaysta marka qofkani wuxuu jecel yahay inuu wax sadaqaysto ma dhahayo aan soo dukado ma arkaysaa aan soo xajiyo aan soo soomo dhahay laakiin sadaqada ayuu jeclaanaya sadaqada laana nabi wakiil alayhi salatu wasalaam qofkiin hasadaqaysto walow bi shiqi tamra timir jeexid baa la ka dhigay sadaqayso wax sadaqa la bax marka waa kun min as-salihin dadka saalihiintan aan kamid noqday marka wax sadaqay ilaahay markuu wuxuu yiri walan yu'akhir Allah nafsan ilaahay naf dib u dhigi maayo ida jaa ajaluha hadii ajalku yimaado أجش هديتي ماذا إلهي دبوا دقي معي واصدا فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كلا بل رانا ماركيسا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء إلهي دبوا دقي معي مركا أيضا سيداس مركا أي جرته وحا ماركيسا وح لقح ماذا أمانتي إن dad fara badani ilaahay uu siiyay hanti ilaahay uu siiyay laakiin hantidii ay u isticmaaleen dhanka xun ay u isticmaaleen iyo meesha aan wanaagsaneyn ay u isticmaaleen dadka qaar waxay ku isticmaalaan martiqaad iyo hoteelo inay dad ku martiqaadaan iyo asxaabtooda inay ku martiqaadaan dadka qaar waxay hantidooda u isticmaaleen siyaasad iyo laaluush iyo xisbiyo inay maartay ku laaluushaan maarkaysa iyo siyaasad iyo waxyaalaha iska taqaan politic inay u isticmaalaan dadka qaarna waxay u isticmaalaan hantidoodii waxay u isticmaalaan maarkaysa waliba ayadoo si israaf ay tahay oo tabdhiir oo maarkaysa ay waxay u isticmaalaan arasyo iyo meher lacag fara badan oo lagu bixiyo waxa soo dhan waxa kale hanti lagu bixiyaa iyo lacag lagu bixiyaa xusaska iyo alla bariyada ayaa lagu bixiyaa iyo siyaarooyinka iyadoo lagu bixinayo hanti fara badan iyo lagu bixinayo inta marka qofka muslimka waxa la rabaa inuu noqdo qof ilaahay hadii uu wax siiyo de lama diidana martiqaad lama diidana maaragtay mahar inaad wax ku bixiso aroos inaad wax ku bixiso laguma diidin laakiin sidaan macnaha oo israafka oo xadgudubka oo hanti fara badan oo maanta aan mudnayn in lagu bixiyo qofku inuu ku bixiyo maalkaasi waxa waaye xaraan buu noqonayaa waana la isweydiinaya qofka waa la isweydiinaya maalka waxa la yiri xalaashiisuna waa xisaab xaaraantiisuna waa ciqaab
إلهي وكل حساب تميا شلين با إلهي كل حساب تميا وقفوهم إنهم مسؤولون وليس محشر كبال استاجي إلهي هرتي سبال استاجي إذا ليس ويدينا يا هالكات ككنتي إيه هالكات كوب بحسي وليس ويدينا يا حلال مكو كنتي حلال مكو بحسي حلال مكو كنت مركو حنتي أنا حلال مكو ساقش مال حلال مكو بحسي أنت سبال ليس ويدينا مركا قفوا لي بالجواب مركا هدي يرصدوا مركا إلهي القرآن كيسوع حكوي ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين آيات دي كلا وحيهت وآتي ذا الغربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا نومديدين إنت قرابة هذا يا أصحاب هذا يا قيس كذا هذا حقه ذا أتسيس وآتي ذا الغربى حقه والمسكين إن تسيست وابن السبيل المسافر كنا وحسيست لكن وحال ودير التبذير كلا ديدي ولا تبذر تبذيرا لعقتي هاري الردم هتورتورن اسكا بحنن ماركيسا ملايين جاب كسو بحي مارك اسكا فرق اسكا بح لعقتون ميل ان مناسب كاين كبح ميل ان الهي اوغلين حكو بحن marka mubadiriinta leeyahay kuwa khidaya ama iska tuuraya hantida meel aan habooneyn ku bixinaya mubadiriin baa leeyahay kaanu ikhwan ash-shayatin waxay noqonayaan ikhwan ash-shayatin bay noqonayaan shayatinta wala leeyihiin أي ولا ليه إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا الشيطان كنا إلهي وكو كفري مركا الشيطان كنا إلهي وكو كفري سبحانه وتعالى مركا قفك مسلم كوحال ربا إنه ميل ونكسن وكو بحيو مركا قاب كأن ربنا إنان وحوقا وأنه مركا وحوائي هدي أن هاي مشروع النهضة أما هي أدان كفالة أقون كفالة أقون waxaa jirtay sida ay ogyihiin dad fara badan ee ku nool wadankan Sweden gaar ahaan gobolkan Dalarna magaalada Burlanga iyo Ludvika iyo Fagashta iyo Smadjebacken goboladaas ama hatta Stockholm iyo meelo kale dad fara badan oo muxsiniin ah oo degan waxay ogyihiin inaanu soo bilawnay mashruucan كفالة الأيتام سنة كي لبكن شنية طبان كي بشي جولاي يا أغسطس إن لعق لا أروري لو تلاقي لي إن عروتها سوح لو برا مركا أنا جو وحنا سميني وحنا لحريرني مقالة المقدشو واسكا بلارتها سوما وحنا كلا حريرني مسجد كالإيمان إمام كيسا إن لحريرني حافظ وابري مقالة المقدشو الشيخ شريف إبراهيم عبد الله علي المؤلف ماركيسا وشيخ مؤلف كتاب قري حافظ مجود إمام خطيب مدرس شيخ دأ إلهي حفظه أسيجي أصحابتي سيان لحريرني iyo gaar ahaan waxa la xiriirnay jamciyad ay leeyihiin la yiraahdo jamciyad ahbaab al-mustafa at-ta'limiyya fi Soomaal waa tanaan marka waxay noo soo direen markaysa carruurtii sawiradoodii iyo magacyadoodii ay noo soo direen agoonta ahaa halkan ay ku qoran yihiin magacyadoodii iyo iskuulada ay dhiganayaan iyo da'dooda iyo dhibaatada haysata iyo baahida haysata ay nala soo xiriireen جمعية أحباب المصطفى التعليمية في الصومال جمعية داس أي سمية أحباب مصطفى Association for Education in Somalia أيها هذا waxay noo soo qoreen ama noo soo direen liis ay ku qoran tahay 150 arday oo agoon ah laakiin nasiib darro annaga 50kii gaar ahaan 53 carruur ayaa kafaalo qaadnay hadii aan nahay gobolkan Dalarna dadka degan ama Sweden marka waxaan rabaa canjaladan inay noqoto ama kilibkan inuu noqdo shahaadatan amaam Allah wa amaama ilaahay hortiisa inay shahaado ay ka noqoto iyo dadka wax garadka hortooda inay maartay arintan ay shahaado ay noqoto oo marxaati ay noqoto in wax la qabtay waxna la qaban doono hadii la yiraahdo mashruucana uusan istaagaynin una socon doono biidni ilaahi anagoo ilaahay ma arkaysa
idanka ilaahay iyo mashiicada ilaahay anagoo maaragtay kaashanayna inuu socon doono. marka inaan u istaagnay barnaamijkan aan u istaagnay marka culimadaasi sheekhaasi Shariif Ibrahim Cabdullaahi Cali gaar ahaan waxaan rabaa idinka soo ilaaway in clipkan YouTube-ka la gelin doono haddii la yiraahdo isla markaasna lagu qori doono akoonada lagu qori doono markaysa oo akoonkaasi oo ah gaar ahaan ah muxuu ahaa akoon ah Salama Bank konto ay ku leeyihiin iyo halka wadankan Sweden konto ayaa jirta dad lagala soo xiriiray ayaa jira xagga lagala xiriirayo marka isku xir anaga aan sameeyno waaye oo xagga Muqdisho halka waliba arrinta intaas way kasii balaaran tahay haddii dadka muxsiniinta ay si fiican wax u bixiyaan waxaanu gaarsiin karnaa haddii la yiraahdo waqooyiga Soomaaliya iyo koonfurta Soomaaliya iyo bariga Soomaaliya meel walba gaarsiin doonaa. waliba waxaan jecelnahay ilaa 1000 arday inaan ka dhigno 1000 arday inaan gaarsiino oo magaalo walba laga qabto 50 ama 100 ama 200 wixii markaas awood ay gaarto oo inta awooddeena ay tahay haddii la yiraahdo waxay ku xiran tahay dadka muxsiniinta si uga jawaabaan barnaamijkan oo rag iyo dumar si iyo dhalinyaro iyo dadka uu soo gaari doono ama Mareykan ama Europe ama Arab laana YouTube-ku waxa waay maantay markaysa waa aalada wax lagu gudbiyo waaye anagoo isticmaali doona Facebook anagoo isticmaali doona markaysa internet-ka anagoo isticmaali doona oo website-yada isticmaali doona dadka barnaamijkan uu gaari doona haddii si fiican ula jawaabaan waxaan u ballan qaadaynaa inaan gaarsiin doono insha Allah ta'ala biidhnillah sanadyada soo socda ilaa 1000 arday inaan gaarsiin doono ayaan u ballan qaadaynaa. marka agoonkii waxaa lagu kafaalo qaadayaa sanadkii oo dhan 1500 oo karoon ayaa lagu kafaalo qaadayaa. waa lacag weyn waa qiimo jaban ama $150 ama $150. marka ujeedaduna waxay tahay ujeedada iyo hadafka mashruucani waxa waaye ka badbaadinta agoonta in aysan ku biirin kooxaha hubeysan iyo kuwa xag jirka ah inaysan ku biirin. laba waxa waaye kobcinta garaadka iyo maskaxda agoonka lagula jiheeyo wadada toosan oo bulshada anfacaysa naftiisana uu ku anfacayo. in agoonku uu helo aqoon heerkeedu sareeyo oo gaarsiisan ilaa dugsiga sare dugsi sare in carruurta ka bixin ayaan rabnaa oo gaarsiin ilaa dugsi sare ilaa jaamacad inaan diyaarino ayaan doonaynaa haddii la yiraahdo. arrintaas marka waxaa u istaagay masjidka la yiraahdo Al-Iimaan ee magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda waa beri anu weli ma aanan tegin waan tegi doonaa oo soo booqan doonaa haddii la yiraahdo insha Allah ta'ala waa soo booqan doonaa. iyo guddi halkaa ka dhisan oo xaafaddu ay u dhan tahay waliba sida la ii sheegay xaafaddu oon qabiil lahayn oon heer habel lahayn markaysa marka qof kasta ee damiir leh waxaa laga doonayaa barnaamijkaas inuu istaago ayaa laga doonayaa insha Allah ta'ala. marka ugu dambeystii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadka arrintan ka qayb qaatay isla markaasna leh rag iyo dumar leh ayaan rabaa maaragtay inaan markaysa arrintan aan uga mahad celiyo oon ku iraado sanad kale ayaa bilowday isla markaasna waxaanu doonaynaa inaan hore usii wadno ayaan doonaynaa. marka walaalayaal adinkoo mahadsan oo mar kale idin mahad celinayo intii mashruucan ka qayb qaadatay ee dhaqaale ku bixisay ilaahay waxaan ugu baryayaa subxaanahu wa ta'ala in ilaahay uu ku xafido carruurtooda ilaahay ku xafido in ilaahay ajir fara badan ilaahay ka siiyo in ilaahay maalinta qiyaamaha ilaahay inuu tusiyo subxaanahu wa ta'ala sadaqadoodii oo intii hore ka khayr badan kana wanaagsan kana fadli badan maalin ay u baahan yihiin yawma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim markaysa tajiduuhu cinda allahi huwa khayran wa acdama ajran maalin ay aad iyo aad macnaha ay u weyn tahay ajirkaas u weyn yahay
oo ay aad iyo aad ugu baahi qabaan ayay heli doonaan. marka dadkii barnaamijkaas kafaalaqaadka agoonta ka qayb qaatay waxaan u dirayaa hambalyo ayaan u dirayaa. inta kalena waxaan leeyahay ka qayb qaata walaalayaal ayaan leeyahay, ilaahay dartiisna uga qayb qaata. marka ugu dambeystii waxaan kusoo xirayaa barnaamijkayga, waxaan kusoo xirayaa hal arrin oo ah codsigan ah: walaal caawi, u gargaar, ku biir, ka mid noqo dadka qalbigoodu naxariistu ay ku hartay. qofkii aan naxariisan looma naxariisto. nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam: irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa. u naxariista dadka dhulka jooga, ilaahay samada ilaahay idinkaga naxariistee. walaal kula rafiiq, nabiga calayhi salaatu wasalaam jannada kula rafiiq. ka farxi agoon, ilaahay ha kaa farxiye. aabbo u noqo agoon oo kala mid dhig carruurtaada oo kale. ka bixi lacagta iskuulka, waa lacag aada iyo aada u jaban, sanadkii oo dhan waa 1500 oo karoon. 1500 oo karoon waa ama $150. marka waxaa jirta marka oo in aada iyo aada loo xasuusnaada mudan. dad badan waxay yiraahdaan, ma arkaysaa, maxay la egyihiin hay-adaha ay isweydiiyaan agoonta kafaalo qaaday Soomaaliya maxay ku leeyihiin, ama Muqdisho iyo agaarkeeda maxay ku leeyihiin. inta aan aragnay oo aan raadraac aan ku sameynay oo dabagal aan ku sameynay waxay noqdeen 21 xarumood ayay noqdeen oo lagu hayo carruurta agoonta ah. waxaa kamid ah daryeel, xarunta daryeel ee ku taala Lafoole. waxaa kamid ah xarunta Imaam Shaafici. waxaa kamid ah Umu Caaisha ayaa kamid ah. waxaa kamid ah Umul Qura ayaa kamid ah. waxaa kamid ah Orphan Care ayaa kamid ah. waxaa kamid ah Xanaano Orphan ayaa kamid ah. Halgan Orphan ayaa kamid ah. Halgan Orphan Care ayaa kamid ah. iyo xarunta agoonta ee Muqdisho ayaa kamid ah. marka dhammaan waa jamciyaad ama hay-ado si gaara loo leeyahay oo u istaagay inay kafaalaqaad ay sameeyaan. marka anaga sidoo kaleeto ururka Somali Nahda Foreign sidoo kaleeto wuxuu kafaalo qaaday 53 carruur ah, asigoo jecel waliba inuu intaa kasii badiyo oo xiriir la leh hay-adda Axbaab al-Mustafa, jamciyad Axbaab al-Mustafa at-Tacliimiyya fi Somaal, oo madax uu ka yahay الشيخ شريف إبراهيم عبد الله علي حفظه الله ورعاه iyo guddi kaleeto. marka walaalayaal waxaan hadalkii kusoo gabagabeynayaa, ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala arrintan ilaahay inuu noo fududeeyo. qof kasta ee Soomaali ah ee dunida dacaladeeda joogana waxaan ka codsanaynaa inay noqdaan kuwa naxariistoodu ay mar walba ay jirto oo soo kabacdo, una naxariista carruurta, u naxariista oo kafaalo qaada. intaas marka waxaa sii dheer carruur kaleeto oo iyadana in la kafaalo qaado mudano la yihahdo derbi jiif la yihahdo. marka aada iyo aad aad u mahadsantihiin. barnaamijkayga intaas ayaan kusoo koobayaa. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.